daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka xigmadda kooban ah waxaana inila socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Axmed ku magac dheer injineer waqooyi. barnaamijkeenan xigmadda kooban ayaa maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hadduu eebbe raali ka noqdo ilowshaha ama hilmaamka xigmadda ku jirta. ilowshaha ama hilmaamka ayaa aadamigu u arkaan caqabad haysata iyagoo markay isku arkaan ku canaanta naftooda, laakiinse khubarada caalamka ee cilmi nafsiga ku takhasusay ayaa iyagu ku micneeyay ilowshuhu inay ka mid tahay xigmadaha ilaahay ku abuuray koonkan, uguna maciinay kuna manaystay aadamiga dhaadhacayo dhibtu ku xeeran tahay. dadka qaarkiis ayaa xasuusta wixii soo maray ee dhib ahaa iyagoo ku andacoonaya inaanu iloobi karayn. dadkaas ayaa badanaa ku nool xaalad murugo iyo tiiraanyo leh, laakiinse ilowshaha ayaa waxa uu yahay midka keliya ee ka dhigi kara dadka xalay dhalay wixii dhib soo martayna xal u noqon kara. culimmada islaamka ayaa iyagu cafiska ku micineeyay inuu yahay ilowshe, maadaama aad hilmaamaysid wixii dhiba oo ku soo martay ama lagu geystay. sidoo kale cafiska ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku booriyey makhluuqiisa inay iscafiyaan maadaama ay dunyadu tahay dhaadhac iyo dhib meedhan. calool xaadhnaanta aad u qabtid aadamiga kala duwan ee kugu xeeran ayaa iyaduna noqon karta caafimaad kuu dan ah mustaqbalkaaga iyo noloshaadaba. maadaama ay aadamigu dhexda kaga jiraan adduunyo dhib iyo dhaadhac ka samaysan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku manaystay ilowshaha si ay u hilmaamaan wixii dhib soo martay. sidaas daraaddeed xigmadda ku jirta ayaa waxa ay tahay fiyoobidda maskaxda iyo caafimaad qabka quluubta, maadaama ay quluubtu u baahan yihiin inaanay xasuusan wixii dhib soo maray. sidoo kale xigmadda ku jirta ayaa waxay tahay ilowshaha si aanay aadamigu wakhti dheeriya ugu bixin dhibtii soo martay xasuusteeda.